natiijada baaritaanka cudurka coronavirus ee madaxweyne Trump oo la shaaciyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laga waayay cudurka coronavirus kadib markii laga baaray cudurkaasi sida uu sheegay dhakhtarkiisa ka howlgala madaxtooyada Mareykanka. galabta waxay soo gaadhay war xaqiijinayay in cudurkaasi laga waayay madaxweynaha iyo xalay warbixin qoraal ah ku yiri dhakhtarkiisu. madaxweyne Trump ayaa cudurkaasi laga baaray kadib markii xubno ka tirsan wufuud ka socotay dalka Brazil oo dhamaadkii usbuucii hore ee Florida kula kulmay laga helay cudurkaasi. Fabio oo ka mid ah gacan-yareyaasha madaxweynaha dalka Brazil ayaa ka mid ah dadka laga helay cudurkaasi usbuuc kadib markii madaxweynuhu la casheeyay wufuud ka socotay dalka Brazil ayaa haatan waxaa caddaatay inuusan qabin cudurkaasi ayuu yiri dhakhtarkiisu. madaxweyne Trump oo da'diisu tahay 73 sano jir ayaa iskarantiilin shirkaasi kadib waxa uuna ku dooday in uusan qabin astaamaha cudurkaasi. natiijo baaritaan oo lagu sameeyay Jimcihii oo la helay Sabtida taasoo muujinaysa in madaxweynuhu uusan qabin cudurka coronavirus. ilaa iyo haatan in ka badan 2700 oo qof ayaa la xaqiijiyay in dalkaasi uu ku soo ritay cudurkan halka 54 qofna ay u dhinteen.